السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وحلقات كني إيماني جاها كصاب سنة رمضان كي أحواشي سقار كمذا يقفك وحل جدبان بشهر رمضان مركا وجوجو إن أصميه. وحنسوق هذا إن عاول لبطو صالح لذا مثال أما هدينو كجارنا صدح يا أفر ما دام وقت كانوا آت أكوبا يهاي وهذا الكانوا يهاي مد هدف له دليل له نحور له أدلة إياه عضين له فرينت أنو عاوحي حنبار سنتهاي فلان أجنو ضدك قاركود إنتي صومان إنسان كودو وحن أون يجاجاهين أنو أكرديني وحدكتي النص صحيحة يا نبي محمد وحو كيري من لم يدع قول الزور والعمل به قف كان هذا الحمد الدين بين أبورك يا مخراتيك بينتا يا هذا الحمد يا وحكستو أي دقن حمد تهاي أن كتنازلين إلى هاي وجماعة بحنا بيه يسي عبيد يسي عنادي سينسكتاي دليل وحيوتها الدين تنو إن الشعارات قرقروح بدن ولا قرطها هنا أي تهاي إن كبدن إيمان يا قناعة يا وح قلبك قالوا قفك فعل كيس الله قول حسابتم وحجرتي وحلوجا شكي النبي محمد أنتو ننو يميت حديث وبيهقي كورنا يا شعب الإيمان أو حاكم كوري مستدرك وبخاري كوري في أدب المفرد أو يهي الصح كتاب بعد كتاب الله كتابك أقول صحيح سنة ملكنا هذا المسلمين نهاي كتابك إلهي كل حاجة صار على السنة النبي مرك الله يجا كان أقول درجة صرية يا النبي وحاو يمد ننسد أبي هريرة ورناي وحاو كيري رسولك إلهي يو قبض اللي إله بلايو ويصلاة بدنته ويصونته ويصدقيسته أبوابta khayrka ee kala duwan oo dhan dhammaantood way ka shaqaysaa laakiin gabadhaasi tu'dii jiiraanahaa dariskeeda way dhibtaa rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hiya fi nnaar naartay gelaysaa taasi waxba uma tarin waxay samaynaysa adoo daalay oo qiyaamuleyl la yimid oo maalintii soomay oo wanaag oo dhan sameeyey ayaa waxaa lagaaga digay haddaadan waafaqin inaad carabkaaga ilaashato xubnahaaga inaad ilaaliso haddaadan ku darin qalbigaaga iyo indhahaaga iyo jawaarixdaada inaad ilaaliso afkood cunada ka daysa inaanay waxba ku tarayn buu xadiidku tilmaamaya gabadhaasi way soontay salaad bay tukatay habeenkiiba istaagtay maalintii oo dhan bay soomanayd khayr oo dhan bay samaysay laakiin dariskeeday dhibi jirtay nabigu wuxuu yidhi waxeedii oo dhan hal bacaad lagu lisay ka soo qaado naartay gelaysaa waxaa loo sheegay mid kale oo faqiirada oon xoolahay bixiso lahayn oon soon badnayn faradka keliya soonta oo aan salaad badnayn faradka keliya tukata laakiin dariskeedu ay ka nabadgalaan oo nafci badan iyo waxtar badan u leh nabigu wuxuu yidhi jannaday galaysaa calayhi salaatu wasalaam soonkaaga iyo salaadaadu haddaadan akhlaaq wanaag ku darin inayna ku anfacayn buu xadiidku daliilu yahay waxa weeye nabigu nin buu yimid calayhi salaatu wasalaam mithaalka labaad wuxuu ku yidhi kayfa asbaxta yaa xaarisa wuxuu yidhi asbaxtu mu'minan xaqan xaarisow saaka muxuu waagu kuugu bariyey maxaad ku barideen wata soomaalida is weydiisa waxa uu yidhi wuxuu waagu iigu bariyey rasuulka ilaahay oo mu'min dhaba anoo ah wuxuu yidhi wax waliba calaamad bay leeyihiin iyo tusaale lagu garto maxaa ii caddayn kara inaad saaka iimaan dhaba leedahay wuxuu yidhi waxa kuu caddaynaya waxaan ahay nin maalintii oo dhan ooman oo sooman maalintii oo dhan dami'tu nahaari maalintii oo dhan waan oomaayo waan soomaa wasahirtu leyli habeenkayga oo dhanna waan soo jeedaa wacazifat nafsii can iddunya naftaydu adduunyada way ka jeedsatay oo aakharay u jeedsatay maxaad ku garan naftaadu inay adduunyada ka jeeddo ee aakhara u jeeddo waxaad ku garan tusaale ahaan markaad wax bixinayso haddaad ogaato waxa kaa baxay inaad ka jeceshahay waxa jeebkaaga ku jira ilaan ramadaan baad joogtaaye waxa aad bixisay iyo infaaq aad bixisay iyo khayrka aad bixisay iyo sadaqadaad la baxday waxa ku yaala inay aad ka jeceshahay oo kuwa tagay ee aad bixisay aad jeceshahay ilaahay agti ku tageen reera aakhiraad tahay
laakiin waxa kuu yaalla haddaad jeceshahay oo wixii kaa tegey ka murugoonayso reere adduun baa tahay wuxuu yidhi calaamad waxaa iimaankayga waa maalintii oo dhanna waan soomanahay habeenkii oo dhanna waan soo jeedaa adduunyadao dhanna waan ka jeedsaday waxaan arkaa keliya markaan salaada galo malakulmowt aad mooddo jeegadayda intuu taagan yahay seef inuu igaga hayo xagga dambe midigta waxaan ka milicsadaa jannada bidixda waxaan ka milicsadaa naarta dabeedna waxaan hor taagnahay oon tasawurtaa ilaahay qudradiisa subxaanahu wa tacaala daliil waxay u tahay buuhi inaan marka iimaan lahay rasuulka ilaahay ow sow ma aha markaasaa nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam qofka ay farax geliso inuu eego nin ahlu jannaha ka mida xaarisaha eego nin salafu saalixa yaa waxaa u yimid nin bataala oo dadka iska sheekeeya oo macno darrada isaga nool oon soon ilaalinayn oon wakhti ilaalinayn yaa u yimid markuu arkay wuxuu galay iyo xanta iyo kiibada iyo inaanu iska daynayn barabagandada yaa wuxuu ku yidhi haddaad doonaysa inaan kula sheekeeyo qoraxda jooji dushayday ku socotahay intay qoraxdaasi socotay buuhi anigu ma hadli karo waxaan khayr ahayna kama shaqayn karo nin baa wuxuu yimid nin salafu saalix ka mida gebagabadii wuxuu ku yidhi sheekhow naftaydii waxaan ka kari lahay macaasida waxa uu yidhi idhegayso dhulkan ilaah baa leh haddii intaad iskaga tagto dhul kale oo tagtood adigu samaysatay aad heli karto oo dhulka ilaahay ka haajiri karto ilaahay inaad caasidaa way kuu gudboonta yacni waad yeeli kartaa inaad ilaahay caasida maadaamaadan dhulkiisa u baahnayn haddii risqi kale ood adigu leedahay aad cunayso ood risqiga ilaahay dayso risqiga allaa lehe waxaad cunayseed ku nooshahay ilaah baa le oo ku arsaaqa arsaaqdaa haddaad dayn kartana dee waxa weeye mid kale ood samaysatay aad u kici karto ilaahay caasi way kuu gudboontahay inaad ilaahay caasidahay waxa uu ku yidhi haddii malakulmowd markuu kuu yimaado aad odhan intaan tawbo keenaya ii soo laabo iyadana way kuu gudboon tahay inaad alla caasidaaya ilaahay caasi laakiin adoo mulkigiisii ku dhex jira oo waddankuu ilaahay abuuray jooga oo arsaaqdiisii cunaaya oo wakhti lagu qabanaan garanayn ilaahay inaad caasidaay kuuma gudboona ilaahay u tooba keen buu ku yidhi waanu ilaahayna waa uu ku anfacay subxaanahu wa tacaala waxaan ku gebagabaynaynaa kiibada iyo xanta nabigu wuxuu tilmaamay qofka dadka isku diraa jannada ma galo laa yadkhulu ljannata namaan buu nabigu caddeeyey calayhi الsalaatu wasalaam qataat buu nabigu caddeeyey qofka xanta badan ee hilib cunka badan ee dadka hilbahooda cunaa jannada ma galo waxaan ku gebagabaynaynaa mar kale anoo idin idhi dhowr jeer waan gebagabaynaynaa waxaan ku gebagabaynaynaa mar kale in la tilmaamo laba saxaabiyadood nabiga asfaartiisii ama safaradiisii mid ka mida inay kula jireen marka dadkii ay afureen saxaabada ahaa labadii gabdhood xitaa biyo uma baahna nabigay u tageenoo waxay ku idhahdeen rasuulka ilaahay dadkii way afureen annaguna waan dheragsanna wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaad dad xamateen bal tashti ha la keeno tashtigii baa la keenay si imtixaan dadka loogaga dhigo wuxuu ku yidhi afka gacanta geliya oo midood waliba dhiig bay hunqaacday markaasaa wuxuu ku yidhi dad hilbahood baad cunteen dad hilbahood ood cunteen baad idinku ku afurteen waxa weeye markaad sooman tahay walaal iyo aabbe iyo adeer ilaahay intaad ka baqdo markaad sooman tahay ilaahay intaad ka cabsato afkaaga ilaasho carabkaagu yuuna ku qaniinin oo aakharo sababtiisa yaan wejigaaga naar loogu tuurin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa inoo ballanahayd markaad dhegaysato risaaladaas inaad gudbiso addaalu cala alkhayri ka faacilihi buuhi nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa talo iyo naseexo naftayda iyo nufuustiinna aan ugu tala galnay ilaahaynu inagu anfaco mana aha amar ixsaan weeye iyo dalab haddaad yeeli karto dadka u sii gudbi